ألوذ به إلاك يا سندي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، walaalyaal assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu towfiiqdana waafajiyo, xanuunkan adduunka baahiyeyna alla subxaanahu wa tacaala aadanaha uu ka dulqaado, intii u xanuunsan oo muslimiina inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad siiyo, intii u geeriyootana ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigoodii dhaafo, dhammaan waaridkeenna ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigooda uu dhaafo, awlaad inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala noo hagaajiyo, xaasaska ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu noo barakeeyo. walaalayaal, barnaamijkan waxaan ugu magac daray qoyska suubanaha sala allahu alayh wasalam. waxaan diiradda ku saaraynaa nebiga sala allahu alay wasalam guryihiisii, xaasaskiisii, awlaadda nebiga sal allahu alay wasalam, siduu u tarbiyeeyey, siduu qaabka wanaagsan ula dhaqmay. waxaan baranaynaa nebiga sala allahu alayhi wasalam zawj ahaan sida uu ahaa, aabba ahaan sida uu u dhaqmi jiray nebiga sal alla alay wasalam. barnaamijkan walaalayaal waxaa nagu kalifay inaan maaragtay qaabkaas diiradda u saarno. weerarka maalmahan dambe dhinacaas reer galbeedka iyo ka socda oo suubanaha sala allahu alay wasalam sharaftiisa iyo magaciisa iyo maaragtay iyo daatadiisaba wax looga sheegayo, khaasatan dalkan hadda la yihahdo faransiiska oo maalmaha dambe shaqo ka dhigtay maaragtay inay nebiga sal alla alay wasalam iyo diinta islaamka ah bicture khaldan ka bixiyaan, in dadka muslimiinta ah oo ku nool waa maaragtay dhulka faransiiska ay si maaragtay khaldan ula tacaamulaan, boolicy gooni ah ay ka qoraan. maaragtay arrimahaasa nagu kalifto walaalayaal inaan ka faa'iidaysano mawjadaas. annagu haddaanu nahay dad muslimiina, community soomaali ah, inaan nebiga sala allahu alay wasalam si khaasa u barano, nebiga sal alla alay slam siiradiisii dib u jilleecsano, meelo kala duwanna laga kala barto. run ahaantii dadka muslimiinta ah ilaa xilligii saxaabada iyo wixii ka dambeeyaba waxay cinaayo gooni ah saareen taariikhda nebiga sal alla alay slam iyo siiradiisa. kutubo badan baa laga alifay, qaabab kala duwan baa looga sheekeeyey. isagoo qoraallo ah baa siirada nebiga sal alla alay slam la qoray, ayadoo gabay ah baa la qoray, kutubo dhaadheer baa laga qoray oo mutawalaad ah, kutubo gaagaaban baa laga qoray, jawaanib kala duwanna waa laga kala istaagay. waxaad arkaysaa siirada nabiga sal alla alay wasalam oo dhinaca leadershipka laga hadlo, alqiyaada nabawiya, dhinaca maarata siirada nabiga sal ly slam oo siyaasadda nabiga sal slam siduu dowladda u asaasay, sidii madaxda uu ula tacaamuli jiray, diblomaasiyadda iyo cilaaqaadka dawliga ah iyo arrimaha maaragtay nabadgelyada iyo arrimaha dagaalka iyo waxaas o dhan nabiga sal ly slam siiradiisii dhinac baa ka hadlaysa. siirada nabiga sal ly slam oo akhlaaqdiisa iyo khuluqiisa iyo dhinaca waxbarashada maaragtay kutubo badan baa ka hadla. dhinaca anagu hadda aan xoogga saarayno waa qoyska nabiga sal ly slam, siduu u guursan jiray nabiga sal ly slam, siduu xaasaskiisa ula tacaamuli jiray, sida awlaadiisa uu u tarbiyeeyey. intaasba insha allahu tacaala xooggaan saaraynaa, waxaana ku tabaqaynaa waaqica aan ku noolnahay, siiba jaaliyadeenna reer Minnesota iyo qaabka loo baahan yahay family valueska, qoyska in la ilaaliyo, valuegiisana kor loo qaado, maaragtay mucaamalada maaragtay xaasaska aan la tacaamulayno, ciyaalka saan u tarbiyeynayno, khaasatan maaragtay duruufaha hadda lagu jiro covid-19 kan adduunka maaragtay ku wada baahay, qaabab kala duwanna adduunkii runtii u saameeyey, dadkiina ay u batay inay guryaha ku jiraan, taasoo dhalisay nolol cusub iyo waaqic cusub oo dadka aysan hore u arki jirin. insha allahu tacaala walaalayaal, barnaamijkan waxaan rajeynayaa inuu maaragtay qeyb badan oo naga mida uu ka bedeli doono dhaqankooda, qaabka ay guryaha u arkaan, ahamiyadda guriga uu leeyahay, mas-uuliyadda ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta uu saaray ee loo baahan yahay inay guryaha xifdiyaan, awlaadda la ilaaliyo iyo waxa ka ratimaya. kusoo dhawaada barnaamijkan qayimka ah, qoyska nabiga sal alla alay slam ka hadlaya, taariikhda nabiga sal alay slam xooga saaraya. insha allahu tacaala meel walba aad joogtaan waxaan idin leeyahay kulanti wanaagsan, wa ilaa liqaa'in aakhar, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. مولاي
بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي